hidaayadu waa ilaahay macrifadiisa waa ilaahay garashadiisa jalla wa ala waa in ilaahay qalbigaaga islaamnimada uu ku sharxa inay tahay diin xaq ah faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam aayaddaasi markay soo degtay uu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada dushooda ku akhriyey qofka ilaahay jalla wa ala uu la damca inuu hanuuniyo laabtiisa ilaahay ku sharxaa islaamnimadu inay xaq tahay markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hidaayadu waa nuur nuurkaa ilaahay mooyaane cid kale ma hayso qofka ilaahay nuurka qalbigiisa uu geliyey buu rasuulku yidhi qofka xubnihiisa ayaa u jajabnaaday ilaahay inay adeecaan hadduu nuurkaasi qalbiga galo allah inuu geliyo wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim nahdii bihi man nashaau min cibaadina baa ilaahay yidhi waa nuurkaas ilaahay mooyaane cid kale ma milkido qofka ilaahay uu doonuu qalbigiisa nuurkaa ku tuura allah inoogu tuuro aamiin dhahada walaalayaal markaa bay saxaabadu yidhahdeen nebi allow oo nuurkaasi qalbiga inuu gale wax calaamadoo lagu gartay may jirtaa ma noo sheeg markaa buu nebigu yihi haa التجافي عن دار الغرور buu nebigu yidhi qofka ilaahay qalbigiisa hidaayadda nuurulhidaaya qofka qalbigiisa ay biyo dhigtay waxaa lagu gartaa التجافي can daari الغuruur daartan dadka dagaysa ee khiyaaliga ee beenbeenta ee kasaraabin biqiica uu ilaahay ku tilmaamay ayaa qofkaasi ilaahay qalbigiisa ka jeediya ma qiimeeyo adduunyada walaa dadka adduunyada haystana ma qiimeeyo meesha adduunyada lagaga hadlayana ma qiimeeyo walinaabatu ilaa daari اlkhuluud buu nebigu yihi sifada labaad wuxuu nebigu ku sheegay qofka qalbigiisa nuurka ilaahay uu geliyey calaamada labaada lagu garto waxaa ka mid a daarta lagu waaryayo ee bini aadamku marna aysan ka guurayn allah inageeyo waa jannadee daartaasuu qofka mu'minku jecladaa buu rasuulku yidhi